السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين كسر هذا القناة كنا فضلنا هدي أنا عصبتين سبسكرايب إنه الله هدات هرنولي جوكتنا لاك تشيرتا runtii aad baa idinku xiisnay maalmahani maxay tadwaan kala mashquulnay adiga waxaan ka maqnaa umaleynaa hal maalin ama laba maalin I think saa maleynayo marka waxaan doonayaa waxaan arkay gabdho fara badan oo ka cabanayo dhanka timaha marka maanta waxaan doonayaa insha Allah taala waxa idinku dhahmo xagga timaha inaan idin soo gudbiyo adinkana aad si wacan uga faa'iideysataan insha Allah taala marka hore gabaray hadii aad tahay gabar ku dhiman dhanka timaha first waa inaad timahaada u yeeshaa jadwal ama routine aad u sameysaa isbuuc walba waa inaad routine u sameysaa timahaada ama jadwal aad meel ku dhagsataa ama maskaxdaada aad ku haysataa waxa aad u muhiim ah maalinba kareema soo baxay maalinba saliida soo baxday maalinba shaamba soo baxday timo kuma wanaagsanaadaan timahaadana kuma qurux badnaanayaan waxaad sameynaysaa waxaad u daa'imaysaa shaambo aad u wanaagsan sidoo kale to conditionkeeda saliid ku gaar ah waxba ha ka badbedelin adiga waxa tayadoodana iska akhri koodi hore markaa bilaabaysid ugu yaraan natiijadana waxaa lagu helaa adiga 3 months 3 bilood ayaa lagu helaa natiijada wax walba aad bilowdo ma ahan inaad isbuuc iska bedelayo ma ahan inaad hal bil oo kaliya iska bedelayso ama dhowr maalmood marka waxa sameynaysaa u dulqaado wax walba waa dulqaad iyo simir una daa in halkaas shay madaxaada hana ka bedelin يعني nafaqooyinka caadiga ah oo guryaha lagu sameeyo sida afakaadada oo kale ukunta oo kaleeto wax baamiyaha kaleeto kuwaas waa iska bedbedelan kartaa ama marsan kartaa waxa effect ya malaha laakiin productiga madaxaada aad u isticmaalayso haduu ahaan lahaa shaambo haduu ahaan lahaa saliid haduu ahaan lahaa conditionka ama maskiga يعني waxa sameysaa hal wax oo kaliya waa ina isticmaashaa una kaadisaa aad u sugtaa ilaa 3 months ama 3 bilood hadii aad ku aragtay cilad markaas aad iska bedesho hadaa adagoo 3 bilood gaarin ah cilad xitaa ku aragto waa iska bedeli kartaa laakiin wax walbo natiijadeeda waa loo dulqaataa waxa arkaysaa gabadha maanta ku dhahayso waxa soo baxday saliid timaha bixinayso shaambo timaha bixinayso qurxinayso waxa kala soo baxay kareem madaxa loogu talagalay tii horaad qubaysaa tu kala doonaysaa lacagtaadina waa kulloos garoobaysaa oo dhanka dhaqaalahaada uma wanaagsana xagga timahaadana uma wanaagsana wax walbo la badbedelana madaxaada effect ayuu ku keeni karaa madaxaada waxa macquul inuu ka jabo inuu ka siibsiibmo inuu ka noqdo madax asiga dhan timaha ka kala haadaaday oo kale xitaa waxa macquul inuu saameyn timahaada ku geysto oo timaha ka damage gareeyo wax walbo oo cusub marka madaxaada ku tijaabinin ama timahaada waxa taqaanaan isticmaal every time waxba soo baxay hadii lagu yiraahdo okay bal kuwayga hor aan natiijo ka gaaro marka ma ahan maxay hay'tad wax walba cusub madaxaada ama timahaada inaad ku tijaabiso maalinba meel u gur waa laga fiican yahay marka hal product timahaada u sameyso jadwal u sameyso maxay hay'tad harmaskada guryaha lagu sameysto waa dabiici waad sameysan kartaa maxay hay'tad saliidaada ha ku gaar ahaato shaambadaada maxay hay'tad conditionkeeda ma sha Allah wax walbana waxay ku wanaagsan yihiin hal shay inaad daa'imto marka tala wanaagsan gabdho insha Allah taala waan ka faa'iideysan doontaan saarajeenaya